waxaa maanta xiran guud ahaan ganacsiga magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kadib amar ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ganacsatada ku amray inay xiraan ganacsigooda. Goobahan ganacsi ee maanta la xiray ayaa isugu jira kuwo ay xireen maamulka Hirshabelle iyo kuwo ay xireen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Amaradaas ka soo horjeeda ayaa sababay in maanta uu shaqayn waayo ganacsiga magaalada Jowhar. Ganacsatada magaalada Jowhar oo aan la xiriiray kana gaabsaday inay warbaahinta la hadlaan ayaa ii sheegay in Al-Shabaab ay la soo hadleen ganacsatada waxayna ku amreen inaysan furi karin ganacsigooda ilaa amar dambe. Waxaa kaloo ii sheegeen ganacsatada lagu soo amray in ganacsigooda ay xiraan inay yihiin kuwo ka dhaga adeegay inay aadaan degmada Aadayaban oo looga yeeray halkaasi oo xarun u ah ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab oo 10 sano ka hor laga saaray magaalada Jowhar ayaa si toos ah waxay hadda u maamulaan Jowhar oo ah caasimadda Hirshabelle. Amarada ka soo baxa ayaana ka dhaqan gala guud ahaan magaalada. Xirnaanshaha suuqa magaalada Jowhar ayaa saameyn ku yeeshay dadka xoogsatada ah ee nolol maalmeedka ka raadsan jiray ka shaqaynta suuqa gudihiisa. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, Jowhar.